qaar ka mid ah muwaadiniintii deganaa goobta laga dhisayo madaxtooyada cusub ee galbeedka magaalada Hargeysa laga dhisayo ayaa waxa ay sheegeen in dhulkani uu ahaa dhul dan guud ah oo ay ilaalinayeen muddo ka badan 20 sanadood isla markaana markii ay u baahatay dawladdu ay ka baxeen waxaanay meesha ka saareen inaanay dhulkani lahayn haba yaraatee dad gaarihi muwaadiniintan oo warbaahinta kula hadlay goobta laga binaynayo madaxtooyada cusub ee Somaliland ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan waxay mareysay dawriyo 74 meelaha mujaahidiin leh ciidamada qaran kale nooc walbana leh xukuumadda ayaa waxay noo soo jeedisay in aan meeshii ka guurno oo ay tahay buuraha danta guuda xukuumadda inay u baahan tahay inoo sheegto laga dhisayo madaxtooyo aan ku qanacnay waana aqbalnay haddaba TV-yada waxa maalmahan ka soo baxaya warar oranaya nin ganacsado oo leeyahay Maxamed Xasan Dalab oo beertiisu marka dhinkan bari naga xigto oo TV-ga leeyahay qaban doono inuu ninkaas beertiisu halka ahayd ku doodayo inuu meeshan beer u ahayd isagu leeyahay oo isaga loo xukumo isagu leeyahay sharciyo walba oo haysto hadalkaas ayaan beeninaynaa annagoo aragib jaayinta meeshan degay 29 deegaankan xarafna ahayn waxaanu cadaynaa halkan ilaa tahay buuri danta guud ee ciidamada gandalo ee degaan jireen oo shimbiruhu dul mari jirin markii hore beeray noqotay inay jireen buurta danta guud ay tahay buurna waxa xukunta u dawlad xukuumaddu wixii aan ahayn ee qaadanaya meeshaasi anagu kama yeelin anaga leh oo xaq u leh oo intaas oo dhan soo deganin marka xukuumadda Soomaaliland waxa ka codsanayna haddii ay cid wax ka siinayso anaga nasiiso oo ay noocyadiisu dhulkii naga qaatay xukuumadda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa wixii annaga oo ah reer xaraf aabahayna la oran jiray aadan abiib cabdilaahi anna axmed aadan layla wixii aanu xaq u lahayn in aanu ka helo cid kale oo nooga horeysay oo meesha lahaydna ma jirto anigu waa mujaahidiintii berigii hore halkan degay waxa weeye oo xukuumad baa dhulka ka mas'uula ayadana xaq u leh cidda siinaysa cidda ka qaadayso maadaama anigu deegaankan ahaan mujaahidiin ilaa dhowr 19 meeshan bas ka deegaanahay dawladdu way noo timi meeshii waxa la waalin kala wareega madaxtooyada laga dhigay arinta ayada aad iyo aad waan ku hambaliyayna waana u yeelay maxamuud warax jaamaca Jifara nimankii mujaahidiinta ah ee meesha deganaa danta guuda si fiican oo sharaf leh ay yeeleen xukuumaddana way ku wareejiyeen dadweynahan cabanaya ee faraha badan ee la sheegaya ummadda waxay uga cabanayaan haddii aad aragto wax la isku haysto waa wax xukuumaddu marka horeba lahayd xaqiiqada lagama leexleexdo daba waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inay dadkeedana dhowrto oo hantida qaranka ee maqanna ay si fiican u soo wareejiso sidii hore sidana bay kaga wanaagsan tahayba markii hore aanu gacanta ku haynay meeshan iyo sidan imiga looga dhigay hantida danta guuda oo kulay si dhib yar baabay nagu dhaafi lahayd oo waxa weeyaan ay gacmaha iyaga uga bixi lahayd laakiin waa wax muuqda oo maanta qaranku leeyahay ciidan gaarka ee maanta sheeganaysana cid hore loo arki jiray maaha waa cid imiga uun damca la timiday waxa weeyaan inaad iska damaacido oo wuxuuna iska sheegatood miidiyaha soo mariso maaha waxa weeyaan hanti qaran bay hayd qaran baana lahaa imigana qarankii baa la wareegay annaga ciddii gacanta ku haysay ee marka hore haysayna annagay hayd ciidan kale ee cusub ee maanta ka hadlasay sheeganaysa inay iyadu magaranaysaa ay meesha lahayd wax magaranaysa macquula maaha odayga ee sheeganaya maanta dhulka danta guud ahaa ee annagu aan gacanta ku haynay waxa weeyaan wadadaas u dhaxaysa way idinka arkaya la idinku qabanayo wadada weyn baa u dhaxaysa beertiisu waa taa dhinaca u rogmata dhulkaasina dhulkii lafta ahaa ee banaanaa ee ummaddu magaranaysa ay annagu ugu horeynay aanu degnay bay ahayd imigana waxay noqotay dan guud oo waxa la wareegay qarankii sidaas baananu annaguna ku raacnay ananu ku magaranaysa taabacnay waxa weeyaan cidaasi inay ka joojiso uun kulay iyaan jecelnahay magaranaysa warbaahinta wararka aan xaqiiqada ahayn Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.